waa gartay daysane ciyaarihii runtii waxaa lagu sii dhowaanayaa December ciyaaro badan ayaa la ciyaaray wuxuuna ilaa hadda waxaa la leeyahay lama saadaalin karo bal markaad fiiriso markan ciyaartoyda ka ciyaara Premier League kuwa ugu wanaagsan gaar ahaan kuwa dhinacyada ama baalaha ka ciyaara haddii aad falanqayso kuwa soo baxay kuwa iyagu markaasi ay tahay in kooxdu ay ciyaarsiiso kuwa laga yaabo in benjiga ama la fariisiyo bal noo kala saar horta saa u sheegtay runtaa waa ciyaaryahano badan oo geesaha ka dheelo ayaa Premier League jooga laakiin inta badan dadka waxay afku hayeen Bukayo Saka inuu yahay ninka ugu fiican runtii Bukayo Saka sida hadda horyaalka markaan soo qaadano Saalax laftigiisa geesow ka dheela sanadka hore loon lama hadli karin Saalaxa meesha haysta rag haysto ku jiray Bukayo dadka ku xigo ku jiray marka ani ahaan laakiin sanadkan markaan ka bilaabo Bukayo Saka saa u malayna hal gool oo dhaliyay goolkii xalay Sunderland ayuu dhaliyay gool dhigidiisii iyo cabsidii weyneed lagama qabo laakiin aniga hadda haddaan ka tusaale qaato waxaan isleeyahay hadda Doku ayaa number 1 ayaan isleeyahay kubadda markuu qabsado sidoo uu jiidayo Doku dhibaatada haysatay waxay ahayd kubadda markuu soo galo meel dhigidiisa ayaa aad iyo aad u liidatay oo aragtidiisa ma fiicnayn iyo gool dhalintiisa inkastoo goolka maanta marka ma positionka ma loo bedelay position waxna waa laga qabtay oo ninkan markuu qabso dhulku fiiri jiray oo qofka dhulka markaa fiiriso wax qofka ma taqaan ibn ciida siinaysa hadda waxa malaysa kubadda markuu isluxluxo inuu dhaxda ku soo tiraan oo qof uu siinaa dhowr mar maanta kubadda inay fil foodin kubad inuu u dhigo dhali waaye shirki inuu kubad saasoo kale sidii hore inuu ka fiican yahay indhihiisa ay furan yihiin oo kubadaha uu jiidayo isla markaana uu dad fiirinayo speedkiisana inuu fiican yahay kubadahan aan si fudud looga qaadi karin inkastoo gool uu dhalay ee ugu dambeysay bishii January oo Ipswich uu ka dhaliyay oo gool dhalintiisa ay yaraad maantase gool cajiiba ayuu dhaliyay oo kubadda markii la siiyay dhaxda inta uu qaatay lugtiisa midigta sababtoo ninkan waa nin lug midigta bidix maaha taasoo bidix u jooga laakiin maanta kaliya lagu qiimeyn karo markaad fiiriso ciyaarihii la soo dhaafay ciyaarihii la soo dhaafo dhan waxaan qabaa in mar ka dambayso oo kor u soo kacay hatta ani waxaan isleeyahay asiga iyo Sako haddaan barbar dhigo Saalax horto waxaan qabaa inuu aad iyo aad hoos ugu dhacay oo Saalaxii hore oo maanta kubad dhowr mar wuxuu ku helay waxa loo yaqaan 1-to-1ka wiilkan yaro City u dheelo Orale waa mari waay ciyaartii Brentford sidaas oo kale marka Saalax intuu wax soo maro gudaha soo galo kubadda dhigi jiray meesha ma joogo Sakana runtii speed ma laha Saka waya Trossard bal ka waran gaar ahaan goolkii xalay u dhaliyay oo Sunderland ka dhaliyay iyo bal marka uu ka ciyaarayo dhinaca bidixda bal ka waran isaga Martinelli waa la fariisiyay isaga markaas fiiriso isbabar dhigta labadaas ciyaartooy Martinelli iyo Trossard ana Martinelli iyo Trossard ana Trossard aan qaada lahay sababta xagga gool dhalinta Trossard wuxuu ku fiican yahay asigoo kubadda lugtiisa ku jirto ayuu kubad ka toogi karaa oo goolka uu dhaliyay asoo kubadda haysto ayuu wuxuu iska dhig wax bidixda u dhaqaaqay bidixda markii aadan kala fuur oo dhinac ka maray midigtiisa wax yar dhigtay asoo taagan meesha uu ka shuuday si fiican uu dhaliyay laakiin Martinelli wuxuu u baahan inuu la ordo kubadda oo uu la ordo mana hubna laftigiisa kubad dhigida orodkii dooka camul hadda haya miya oo haya laakiin dadna xoogna uma maro dadka maritaankiisa ma badno laakiin marka kubad looga dhaxbaxay speed uu leeyahay ordo uu leeyahay laakiin labadooda markaan soo feeliyo Trossard ayaa ka tiknika badan mid kale Trossard meelaan loo malaynin ayuu intuu ka yimaado gool oo ka dhaliyaa marka inkastoo da'diisa ay kor tahay labadoodaba horto maridooda difaac inay maraan mar walbo qaasatan difaacyada waaweyn suurtagal uma aha laakiin aan labadooda markaa isku qiimeeyo Trossard aan qaada lahay sababtoo waa ka farsamo badan yahay labadooda markii la isku fiiriyo waya markaan u soo daadegno dhinaca dhexda oo ah xudunta banuuniga halka laga maamulo oo kooxda hadii dhexda laga qabsado ay isku dhaxyaacayso yaa silada ciyaartooyada ugu wanaagsan iyo kooxaha markaas hadda jira qofkaas ayaa ah number 1 kaas ayaa laga yaabaa in maartay uu farsamadiisa ay wanaagsanaatay oo tababaro dheeri macnaha qaatay oo marka loo fiiriyo sanadihii hore ama ciyaarihii hore to marka aad fiiriso asleedahay horumar u sameeyay horta runtii sanadkii hore waxaan qabaa Liverpool inay ahayd ciyaartooyda dhexda ugu fiican Arsenalna hadda inay ayaga ay yihiin Chelsea laftigeeda markaan aado Fernandes iyo ciyaaryahankan kale oo Concedo inuu number 6 aad u fiican yahay Newcastle markaan aadno Tonelli inuu yahay ciyaaryahan aad u fiican dhexda ka dheelo John Linton
Bruno Guimaraes inay aad iyo aad uga fiican yihiin. City laftigeeda cayaaryahankan hadda yimid Nico Gonzalez inuu soo kacayo oo waxaan ka hadlaa difaaca oo difaaca macnaha dhexda ka dheelo difaaca ilaaliya. Ani laakiin waxaan isleeyahay Gravenberch inuu yahay ninka ugu fiican sababtoo Gravenberch ilaa iyo 15 kilomitir oo ordaa markuu cayaarayo waa ninka ugu dhaqaaqa badan. Difaacu kaalmeeya, weerarku kaalmeeya, laakiin kooxdiisii waxay dhaqatay inay hoos u dhac ku yimaado. Arsenal dhexdooda Declan Rice aad u fiican gool u dhaliya, Subamendi, laakiin ani ahaan waxaan isleeyahay Gravenberch labadoodaba xagga dhaqaaqa. maxaa ku dhacay Odegaard kabtankii kooxda Arsenal dhaawac kuma qayaamiya Odegaard weli dhaawac kuma, laakiin Odegaard waa number 10 oo kale oo Odegaard laftigiisa Odegaardkii hore sanadkii hore maaha oo hadda waxaan isleeyahay numberka 10 markii la fiiriyo ciyaaryahano Phil Foden oo kale hadda sidoo hore uu ka soo kacay uu ka fiicnaaday. Ciyaaryahankan laftigiisa oo Szoboszlai oo numberka 10 laga ciyaarsiiyo Liverpool oo Florian Wirtz ah waa la bedelay, laakiin laftigiisa waxaan qabaa inuu yahay numberka 10 ku ugu fiican oo maanta darbo wuxuu ku gamay aan caadi ahayn oo darbooyinka goolasho ku dhali jiray hase yeeshee Donnarumma ayaa meesha joogay. Marka Eze laftigiisa waa numberka 10 laakiin Eze iyo markaan isku fiiriyo Odegaard ayaa aniga ila tayo fiican. waa gartay haddaan usoo daadegno dhinaca difaacuna waa qayb muhiim ah oo laga difaaco in ay goolal kaa dhashaan isla markaasna mararka qaarkood waxay caawiyaan weerarka oo Bundesliga yani markaasi ay gacan siiyaan. markaa fiiriso difaaca ugu wanaagsan kooxaha Premier League ee waqtigan iyaad ku tilmaami lahayd? Horta markaan difaac la dhaho Arsenal oo difaac fiican oo meesha ay joogtaba difaac ay ku tagtay oo ciyaaryahankan oo William Saliba iyo Gabriel iyo waxa dhinaca saaran Calafiori iyo ciyaaryahankan kale oo Hollandeeska Timber. marka difaacan ay afartooda waa difaac ugu fiican inkastoo ay haystaan laba ciyaartoy oo ilaaliso oo ciyaaryahankan Rice iyo Zubimendi inkastoo ay haystaan haddana ma aha runtii difaac intay baxaan weerar qaadaan ma aha sababtoo difaaca markuu baxo oo weerar ka qayb qaato kubadda markii laga soo gooyo waa loo daba maraa. taasna waxay keenaysaa inay noqdaan difaaca ugu fiican inay noqdaan sababtoo markaa u fiiriso Timber iyo ciyaaryahankan kale Ben White kubadda markii Arsenal qabato weerarka xarqan 18 koob sii socda haddii kubadda laga gooyo Ben White booskiisa ma joogo waxaa la leeyahay dhinacaas bidixdaan nagala soo galay Ben White sababtaas ayuu u fadhiyaa sababtoo wiilkan oo Timber physical aan waa fiican laakiin weerar ma qaado. Difaaca marka waxay ku kala fiican yihiin hadba kooxda shaxda ay wadato in weerarkana markii ay furto gashay inuu ka qayb qaato difaaciisana uusan lumin. Liverpool sanadka hore waxay ku qaaday difaacooda labada dhinac Alexander-Arnold iyo Robinson ayaa qayb waxay ka ahaayeen weerarka oo Alexander-Arnold waa la soconaa goollo u dhalinay kubadana wuu dhigay difaaciisana ma xumeyn oo Liverpool taas ay ku qaaday. ugu dambeyntii marka kooxdii Manchester United maalmo dhaweeto rajadeeda kor u soo kacday hadda barbardhac ka bixi laadahay maxaa qaldamay? laba barbardhac gashay ayagana waxaan la soconaa inaysan ciyaartooy tayo leh oo fiican oo wax lagu bedelo inayna joogin oo Bruno maanta haddii ciyaartiis fiicnaa weyso in lagu bedelo oo fiican ma jirto. Mumba iyo Matheus Nunes haddii ciyaartooda ay si noqoto in lagu bedelo macnaha fadhigooda wax fiican ma haystaan. ciyaaryahanka hadda ugu fiican weerarka markii la dhaho waa Ahmad ayaa ugu fiican asigii hadda hadduu ciyaar fiican dheelo ama ka dhaawacmo nin booskiis intii la keeno weerar qaadi karo ma jiro oo jooga tayadooda saas aad u liidato. taasna waxay keenaysaa kooxdii maalin walba ciyaar fiican hadday dheesho ciyaar fiican maalin walba ma dheeli karto waa in ciyaartooy lagu fakadaa ay jiraan. difaacoodana runtii difaac adagoo xoog lama aha taasna waxay keenay kooxda inay difaaca kaalmayso. marka laga yimaado Arsenal iyo City waa isku xiga oo afar dhibcood u dhaxayso kooxaha kale bal farqiga u dhaxeeyo iyo kooxaha islaada markaasi afarta ugu sareyso way gali karaan yaa kamid ah oo hadda ugu cadcad. horta saacada la socono Chelsea waxay ku jirtaa kaalin saddexaad marka Liverpool iyo Tottenham iyo Villa iyo hadda maanta badisa iyo 18 la wada leeyahay dhowr koox 18 leh oo meel dheer la kala jiro mala koox hadda waxay Sunderland waxayba fadhidaa kaalinta 19 ama ay balaadaha kaalinta saddexaad ama ay fadhidaa Chelsea kaalinta afraad 18 inay leeyihiin inta kale oo aan u malayso Chelsea 20 ay leedahay kaalin saddexaad Sunderlandna kaalinta afraad intan kale ka hooseyso
inay leeyihiin 18 ay kala duwanaanshaha goolasha ay kala duwan tahay. Villa marka horyaalka la bilaabayay hoos ay joogto waxaa umalaysaa inay soo kacday 4 gool ay dhalinayaan, awoodooda ay soo ficnaanayso. marka Premier League hadda dhibaatada jirto waxay tahay kooxa waxaa jira intii loo tago lagu tashi jiray saddexdooda dhibac laga soo qaadi jiray. hadda tiyaa meesha ka baxda oo koox walbo Newcastle oo kale 2 mar ay London timid, 2 marba waa laga adkaaday. waana koox fiican oo awood leh oo Champions League sanadka hore u soo baxday. taas marka waxay keentay kooxii awoodooda, laakiin waxaan isleeyahay 20 ciyaar haddii la ciyaaro in la kala meermi doono oo kooxaha ay koox walba awoodeeda iyo booskeedii ay geli meesha ay hiigsanaysa la ogaan doono. waa tahay aad iyo aad u mahadsan tahay Daysane. intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa falaqayntii ciyaaraha iyo gaar ahaan ciyaartooyda ugu wanaagsan xagga weerarka iyo kuwa ka ciyaara dhinaca iyada bidixda ama midigta, kuwa difaaca, kooxuhu sida ay markaasi ay u kala awood badan yihiin iyo heerarka ay ku jiraan iyo saadaasha kuwa soo geli doona 4 ugu sareeyo. tan iyo kulanti dambe barnaamijkan lamida waxaan idin leeyahay aniga iyo Daysane sidaas iyo nabadgelyo.